imin wanaagsan xilli kastoo idiin tahay daawadayaal soo dhawaada markan waxaan idiin heynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore xalliye iyo CK oo dagaal weyn uu ka dhex qarxay muxuu yahay dagaalka muxuu salka ku hayaa intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan iga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaal kuu gaaro saaxiibo badan haddii aad nagala socoto dhinaceena YouTube-na waxaan kugu xushmeynaynaa in janaalka subscribe aad dhaato gambaleelkana aad furato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada ah iyaguna halkaasi ku baahino waa hagaag saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday dagaalka weyn ee u dhaxeeya CK iyo sidoo kale xalliye labada dhinac ayaa isku haysta arrimo la xiriira weerarka CK uu ku hayo ragga halka CK-na uu damacsan yahay inuu hakiyo weerarada uu ku hayo dumarka xalliye maxay tahay shakhsiyaadka maxaasi isku soo jiidi kara maxaase keeni kara dagaalka waa arrin dadku inta badan ay si weyn ay ugu jahwareersan yihiin xalliye ninkan la magacbaxay ee muddooyinkii ugu dambeysay baraha bulshada ka maqnaa ayaad moodaa markan inuu madaxa kor u soo qaadayo kadib dagaalka CK isaga ka soo cusboonaaday lama oga halka uu ku dambeyn doono dagaalkan hase yeeshee labada dhinac waxa ay isku haystaan sida la xaqiijiyay CK oo markii hore dagaalka bilaabo ayaa sheegay macna xalliye inuu yahay foolxumadii oo qof ah tii oo jirtana waxa uu ka laalaadaa dumarka siduu yiri CK macna xalliye ma jirto naag rabto maadaama uu fool xun yahay waa sidoo hadalka u dhigay CK dhaqaalana ma haysto intaas waxaa yiri CK hagaag macna xalliye arrinta ka gadoodsan xanaaqsan la celi karin furka tuurta ayaa isna soo jawaabay waxa uu yiri CK waxaad ku faantay qurux waxaad ku faantay joog iyo jamaal intuba kaama muuqdaan hadiisa intaas ay jiraan oo aan leedahay miyaa lagu isticmaalayaa masa waxaa tahay laga roone ereg laga roona micno badan uma baahna in la fasiro dadku inta badan way iska garan karaan sidaas waxaa dhahay macallin xalliye markii CK hadaladiisu uu daawaday dagaalka ayaa intaasi ka sii kululaaday xaalkuna waxa uu noqday mid faraha markaasi ka baxa labada dhinac ayaan isku burutuntay taageerayaal labada dhinac kala taabacsan ee CK iyo xalliye oo warkaas si weyn ugu faaqiday baraha bulshada ayaa siyaabo kala duwan u falanqeeyay waxaana loo kala miisaamay erayada iyo sidoo kale cidii gardaran qof aanshaha marqaatida baraha bulshada inkastoo dadku cidna u dirsan haddana waxaa falanqeyn iyo qiimeyn lagu sameeyay dagaalkan curdunka ee labada dhinac u dhaxeeya CK waxa uu ku furfurtay macallin xalliye inkastoo xalliye isaguna uu isdifaacay gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa ay ku dhaganaayeen iyagu qudhooda macallin xalliye kaas oo u arkeen in uu dhuunta qabtay kadib markii ragga daanyeero uu u bixiyay markan gabdhaha garab waxay ka helayeen CK waxaadna moodaa 90% cidda ugu badan ee sheerka bixisay iyo cidda ugu badan ee leegareysay komitida CK waxay ahaayeen dumar ka gadoodsan hadaladii macallin xalliye